waxaa ilaahay xamdigiisa inaan halkan noo suurto gashay maanta inaan idinku soo bandhigno macalinka hogaamin doona kooxda qaranka seniorka ciyaarta soo socota Chan Cup-ka oo aan la ciyaari doono xulka qaranka Tanzania xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxaa runtii farxad u maanta in Rashid iyo maaragtay kollegiisa Qasani u soo bandhigaan bahda kubadda cagta sida uu cawilba ka sheekeeyay biograph-ka runtii waxaa maaragtay asal u macalinka inuu asagoo ciyaartooy kubadda ka soo bilaabay ilaa iyo heerka uu ka gaaray shahaadooyinka uu haysto CAF license-ga ugu horeeyo qaarad ahaan iyo Qasani oo asna hor noola soo shaqeeyay AFCON ciyaarihii Tanzania ku ciyaareen islamada kooxda la shaqeynayay macallimiinta oo ahaa macallin jirdhiska haddana si wadajir ah mar kale ula shaqeyn doono macalinka xulka qaranka Mr. Rashid insha Allah waxaan rajeynaynaa inay noo noqoto guul Soomaaliya waxaan rajeynaynaa inay guul u noqoto game-ka soo socda waxaan xoog saarin doonaa inaan maaragtay waqti dheer sidii looga shaqeyn lahaa waxda development looga sameyn lahaa waxda farsamada iyo macallimiintaba Rashid iyo Qasani insha Allah waxay qayb ka noqon doonaan macallimiinta qayb ka noqdaan horumarinta qaybta development-ga football-ka laga sameeyo waxaan rajeynaynaa Soomaaliya inay u noqoto fursad macalinkana waqtiga hadda imaaday oo iyadana sidoo kale cariiri ka jiro inaan maaragtay diyaar garowno oo few weeks ah heesano insha Allah wuxuu isku dayi doonaa inaa waxa ugu wanaagsan sameeyna hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah waxaan rajeynayaa inay guul noogu dhamaato higsiga kooxda qaranka Soomaaliya waxay noqon doontaa inaan fiirino sanado badan kadib sidoo noqonaya qaranka insha Allah qayb ayuuna ka noqon doonaa Rashid iyo Qasani insha Allah guul rajeynayna technical director-ka ayaa la shaqeyn doono inta farsamadooda ay ku jiraan iyo macallimiinta maaragtay technical-ka ka tirsan waaxda farsamada insha Allah guul rajeynayna xulkeena Soomaaliya guul rajeynayna